السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا أقيارتا شرفت بدن إيميل والبأدونك كتشوغا channel كيجي زنايية ريسيبس. ما أنت وحان إذين وضا فطائر وأفك عربية وحان ليه كرنا روتي جلعسن خفيف ميني بيزا يالا ليه كرا أو لحظة وحلقة قليي وانا دقالة بدن يهي ما قرش بدن مقالو وإسكا waxa guriga ku yaalo ayaad ku habaysan kartaa wuxuu ku fiican yahay cashada especially cashadu aad ugu fiican yahay casho fudud oo yar oo macaan waa iska mini pizza marka waxaan idin tusaynaa waa bilaabaynaa waxaan u baahanahay 2 koob biyo oo diirimaad ah ama qandac ah 2 koob oo biyo ah biyo qandac hal qaado weyn oo qamiirka fixisada ama yeast iyo hal qaado oo sokor ah waxaan baahanahay baking powder nus qaado yar oo nus qaado ah baking powderka waxaan kaloo u baahanahay ukunta midka cadka ah jaalaha waa laga reebaa midka cadka kaliya hal xabo ukun midka cadka kaliya ah iyo nus rubuc koob oo ah waa 1.4 rubuc koob oo saliid ah nus koob ma aha waa rubuc koob oo saliid ah intaas ayaan isku qasaynaa isdhexgelinaynaa si ay sokorta iyo qamiirka isu dhexgalaan kadib si fiican markaad u walaaqdid warqadda balastiga ah ayaad ku daboolaysi wax yar oo u soo kaco intaas ay isu dhexgalaan isla falanqeeyaan adiga 10 daqiiq meelahaas ayaa ku filan badan ma aha 10 daqiiq ayaan sugaynaa insha Allah hadda waxaan arkaynaa inuu wixii isdhexgalay kadib burka ayaan u cabiraynaa burka waxaan u baahanahay 6 koob oo bur ah waa 6 koob oo bur ah ayaan biyihii ku shaqshaqaynaa qamiirkii meesha noogu jira baaquliga ayaan burka korkiisa ku daraynaa shaqshaqaynaa 6 koob oo bur ah si fiican sababta burka loo shaqshaqayna mar hore waa idin sheegay si burka hawada ku jirto uu qafiif u noqdo uu kala baxo taas ayaan ku wadaynaa burkii shaqshaqaada kadib waa ka burka markii aad ku shubtid waxa hadana ku dareysaa ma waa isku qasaysaa ku dareynaa hal qaado oo yar ama hal qaado yariis ah oo cusbo ah ayaa loo baahan yahay cusbada burka markii lagu daro kadib ayaa cusbada lagu daraa sababtoo ah cusbada qamiirka lagu ma daro qamiirka ay kala gooynaysaa qamiirka iyo cusbada waa la kala reebaa marka burka ayaa lagu darsadaa kadib waa isku qasaynaa si fiican iyo kale uma baahna wax kale uma baahna intaan meesha aan idin ku tusay kaliya si fiican isu dhexgeliya si fiican qasida marka hore qaado isku dhexgeli kadibna gacanta ayaad ku cajiman kartaa ama mashiinka ayaad dhexgelin kartaa waa ka si fiican aad gacanta ku sii qasanaysaa haddaad mashiin haysatid mashiinkaas aad gelinaysaa wuxuu u egyahay inuu jilcay oo biyaha ka batay laakiin ma jilacsana kaliya waxaad ku wadaysaa qasida ayaad si fiican ugu wadaysaa waxaad arkaysaa hadda inuu si fiican isu dhexgalay asalka waxaa la rabaa inuu saa u jilacsanaado bur adeeg ama loogu talagelinba si fiican markaad u qastid ay meesha ka soo baxdo baaquliga inuusan ku dhagaynin kadib burka waa diyaar ma u baahna qasid badan waxaad ku daraysaa hadda hal qaado oo subag ah u baahan tahay hal qaado subag qasadna ma aha waad ka reebi kartaa sababta subaga loogu daraayo waxay ka mid tahay wuxuu u sameynaa si qafiif iyo wuxuu ka dhigaa jileec ziyaado ah fiican ayaan qasida hadda u wadaynaa waa aragtaan inuusan bur kale u baahneen ama biyo kale u baahneen kaliya qasid ayuu u baahan yahay cajin u baahan yahay cajinka ayaa loo badinaa
وإنتاس هذا وان دقينا بس واجلع سنية هاي وما باهنا عجن كله وان دقينا 30 مينت أيو ميل نو ياليا مركا هذا واكن واكعي آد بوكعي وانا قفيف آد وفيعن مركا حوغا هذا إنا نستحقلنا واي صوبتو قميرك إنا نكبحينو هوا أيا كجرتو إن هوا لغا بحيو وسفي عن هذا إناد السلح جليسيد أو برك أصل كيسي أد هشيد هذا وعجيني سفي عن أيو السلح جالي مركا عن سمينينا هذا وروريك أيان كدجانينا أما كوسكوس سحن ورقد الروتيجا لو طلق جالي أما ورقد الصبجة أيان سعرنينا كوسكوس أيان كدجانينا أنت سوتنا نقونا ديجا حوالي 20 حبة عمل marka qof walba warwareega sidoo raba ayuu ka dhigaa ama waaweyn uu ka dhigtaa ama yar laakiin ani waxa ila gudboon in la qiyaaso waaweyn siyaada laga dhigin sida hadda sawirka ku arkaysaan warwareegiisa inuu ahaado marka xoogaa yar bur yar ayaa gacanta marsanay si uu si fiican hadii kale waa kugu dhagdhagaa marka burkana aad buu u jilicsan yahay sida loogu talagalay baa marka warwareega sidaan ayaa fiican wareega intaas inuu la ekaado marka sidaas ayaan ku soo dhameyneynaa warwareega waa ka insha Allah marka aan kuuskuusnay oon dhignay warwareega waxaan sameyneynaa waxaan soo qaadanaynaa koob oo dabada ka saxan ay koob laakiin dabada inay ka saxsanaato yaani dabada ay isla eg tahay kadib warwareegi ayaan dhaxda ka duraynaa koobka waxaa ku sahlaya inaad dhaxda ka dulduleelisid oo sidaas ugu socotid waa inaad ku soo shubataa baaquli yar oo biyo ah kadib koobki ayaad baaquliga gelinay isagoo biyo leh kadib wareegi ayaad saaray sidaan sawirka ku aragtaan kadib waad ku warwareejinaysaa si uu dhaxda uga fidsamo oo u noqdo wareega sawirka ka muuqda koobka oo qalalan wax ma wareejiyo waa inaad baaquli yar biyo ku soo shubataa oo koobki aad dhaxgelisaa biyaha ama biyo ka dhig ama caano ka dhig waa isku mid laakiin hadda aniga waxaan isticmaalaa waa biyo okay haddana waxaan diyaarsanay xashwadi ama dhaxgeliski waxaan ka samaystay 2 xabo barbarooni gaduud 2 xabo barbarooni cagaar ah iyo 2 gasactoon xabad basal weyn iyo dhalo yar oo olive oil cagaar ah ama madow ka dhigo laakiin ani cagaar ayaan isticmaalay intaas ayaan isku shiilay xawaashka waxa rabtid ka samayso intaas ayaan isku shiilay kadibna waa kana burki oo aan dhaxda ka duleeliyay yaani dhaxda aan warwareega u sameeyay yaani sida mool oo kale aan u sameeyay moolkaas koobkana dhaxda ayaan kaga duleeliyay saa aragtaan sawirka sida idinku muuqdaba kadib waxa loo baahan yahay xabadii ukun hal xabo ukun jaalla ah oo tii markii hore aan ka reebay iyo wax yar oo waxa isku dareysiin caano yar
iyo wax yar oo Nescafe ah si kalarkaas uu u yeeshto. sababta ukunta caanaha iyo Nescafega aan la iskugu qaso waxaa ka mid ah urka oo ukunta ay keenaysa ama shiirka yar ee ukunta ay leedahay ayay ka baabi'inay caanaha iyo Nescafega. ama qal yaraad ku dari kartaa hadaadan haysanin intaas, laakiin aniga Nescafega iyo caanaha waxaan iskugu daray kalar yar oo macaan ayuu u sameynaa. kadib waxaan ka marmarinaysaa geesaha iyo dhaxda. sababta dhaxda aan ugu marinayo waxay ka mid tahay si dhexgeliski uu celiyo ukunti ayaa qabanayso marka daadanayo ama marka baxbaxayo. geesahaasna waxaan ugu marinaa kalar qurux badan oo dahabi ayuu u yeelaa, iyo wax alla waxaad rabid ayaad geesaha kaga saari kartaa sida simsimka ama xabasowdada. marka kulli sidaas ayaan kusoo dhammaynaynaa oo u marmarinaa. ugu dambeyntii waxaad kor kaga daadinaysaa cheese mozzarella ama iyo nooc cheese adiga aad rabtid oo ka go'an ayaad kor aaga daadinay. cheese-ka markii aad ku daadisid waxaad kaloo haddana aad kor kaga shubi kartaa, waa ikhtiyaari ma ku qasbanid, pizza spices oo dukaamada laga helo. furunka ayaan gelinaynaa oo 220 kor iyo hoos oo kulayl ah 30 minute ayuu ku jiraa.
وكان سيدان أيو كسو بحي من بيزه أما فطائركي آد بقو معان بدن يهي ونفودود يهي سميس كيسة مركا سيداس أيان اسكو أغنى هاي انتا إيو ولن دنبئو حيسا له إيو فيديو عصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.